بسم الله الرحمن الرحيم سو دhowaada asxaabi meel kastoo aad joogtaan waa channelkii geedi surista siyaasaxay oo casharada iyo leelyada taxanaha oo kala socoteen maanta waxaynu ku eegaynaa cutubka labaad gorfayn iyo guurti buugga fasalka koonfurka ee buugga afartanaad waxqabadka sideedaad baan rabnaa inaynu maanta ka shaqayno haddii ilaahay yiraahdo way sida caadiga marka ardayga waxaa la rabaa in layligan uu ka shaqeeyo isagoo buuggiisa iyo casharkiisa la kaashanaya layliga marka qaabkan fudud waxaan ugu soo qoray si ardadu meel kastoo ay joogaan ay uga faa'iidaystaan marka qaybmadee way garan kartaa su'aalaha oo waa dad waaweyn qaybna waxaa laga yaabaa xoogaa inay dhalinyaro iska yihiin oo marka ay u baahan yihiin in la caawiyo saa darteed channelka waxaad kaga bogan doontaa wax kasta oo markaa tabasha ah haddii ilaahay idmo wixii aad garan weydaanna waad ii soo gudbin kartaan soo dhowaada asxaabi maanta waxaynu rabnaa inaynu eegno erayada layliga waxqabadka sideedaad halka waxaynu ku qoran erayadii baa inoo taxan dhinaca dhankaana waxaa inoo taxan weerihii sidii caadiga ahayd waxaa la rabaa weeraha iyo erayada inaynu markaa isku eegno way halkan marka waxaan rabnaa inaan ka bilowno tusaale halka waxaa ku qoran laba qori oo la isku xoqay oo dabka laga dhaliyo sida caadiga reer guuraagu dabka markay rabaan inay waayaan ay taraf ama kabrid waayaan waxay ka dhalin jireen dhirta oo dhirta qaarkeed sida dhuumoodka raydabka dhirta dhugaha nugul oo dhan baa dabka laga dhaliyo marka habkaas waxaa la yidhahdaa madag waa lambarka tobnaad lambarka tobnaad halkaas baynu dhigaynaa marka haddii ilaahay yidhahdo sooma jeedid halka kan oo kale tusaalahan waxaa ku qoran macluul oo lambarka lixaad ah waxaa la yidhaahdaa markaas xoolaha markay xayeysiida yihiin oo kale waxa weeye adoonka u taqaano oo aysan awoodda badan lahayn marka ereyga la macnaa muxuu noqonaya daaduun solmay gaajo u dhimanaya marka lambarka lixaad isaguna muxuu gelayaa halkaasuu gelaya lambarka lixaad isagana halkaas baynu dhigaynaa haddii ilaahay yidhaahdo waayahay maxaa kaloo kuu soo haray halkan waxaan kaaga tegi doonaa qaybna waynu ka shaqayn doonaa insha allah ka wada shaqaynayna isla soconno lambarka lixaad marka waynu ka shaqaynay halka maxaa ku qoran waxaa ku qoran maaro maxay noqonaysaa maaro waxaa la macno ah wasiilo wax hawl ama ujeedo lagu gaadho macnihii hawl ama ujeedo aad rabto inaad gaadho jidkii aad u mari lahayd bay waxay noqonaysaa maaradu ama xalkii aad ku gaari lahayd sidaa darteed lambarka afraadi halkaasuu isaguna gelaya lambar 4 halkaasaan dhignay maxaa ku xiga marka isagana qaabkaas oo kale baa waxaa la rabaa in marka aynu uga wada shaqayno maantood haddii ilaahay yidhaahdo qaybtaas marka lambar kale oo afraad haddaynu ku darno wuxuu noqonayaa marka lambar afraad haddaynu ku darno waxaynu ka dhigaynaa tusaale ahaan lambar 8 oo kale baynu waxaan dhignay halkaa 8 maxaa ku qoran asxaabay lambarka 8aad maxaa ku qoran 8 waxayna ku qoran nacooyin marka maxaa la yidhi hooyada ayeydeed ama ayeydaada labaad maxaa noqonaysaa marka macooyo bay noqonaysaa sidaas baa iyadana ay u noqonaysaa qaabka noocaas intaas marka kale qaabkaas oo kale adiga oo labada dhinacba isugu akhrinaya baa waxaa la rabaa inaad haddii ilaahay idmo aad ka shaqaysid haddii ilaahay idmo qaybtaa adaan kaaga tegey haddii ilaahay idmo aynu sii lugayno asxaabay qaybta ku xigta waxay noqotay bogga 41aad waxqabadka sagaalaad waa bogga waxqabadka sagaalaad oo bogga markaas ah isla boggii 41 muxuu noqonayaa markaa isaguna sarbeebaa layna siiyey markan sarbeeb waa af sogordaha af maldax hadal sidii uu ahaa aan markaa loo dhigin si markaa dadka caqligooda iyo qaabkay u fakarayaan loo tijaabiyo sarbeebihii waa marka halkan inoo ku qoran dhinacaana waxaa inoo ku qoran macnihii sarbeebta ama ujeedadii dahsoonayd ee cid walba inay garato aanay ahayn sarbeebta markaa baa halkaa inoo ku qoran waaye tusaale markaa sarbeebihii hadday halkaan inoo yaallaan dhankaana macnahooda inoo yaalla innaga maxaa layna ka rabaa sida caadiga ah halkaan inaynu lambarada ku tahay waaye tusaale halkaa haddaynu dhigno lambar 3 lambarka 3aad maxaa inoo ku qoran lambarka 3aad haddaynu halkaa dhigno jawaabtiisu maxay noqonaysaa isleeda waxaa la yidhi waa guryo balool halkaan maxaa ku qoran marka 3 waa laga hayaamay meel laga hayaamay oo markaa laga tegay bay noqon cidna ma joogto halkaas waa guryo balool haddaa maqashid waa meel cidla waayahay lambarka ku xiga
halkan oo kale ama godkan u dambeeyo kale aynu waxa weeye isagaan fiirin godkan u dambeeyo waxa inoo ku qoran degmo waxaa inoo ku qoran degmo badani meel ay degtay meel degmo badani degtay waxay noqonaysaa ereyga la macno lambarka shanaad oo kale haddaa eegto waxa ku qoran haddii ilaahay kuu ron yahay waa geed iyo guri lambar shan marka halkaasuu ku habooyey waa geed iyo guri marka waa meel dad badan ay degan yihiin sarbeeb qaabkaasoo kale baynu marka uga shaqaynaa halkan dhexe haddaynu tagno oo lambarka shanaad iridiisa isaga waxaynu dhigaynaa haddii ilaahay kuu ron yahay jawaabta ku habboon maxay noqonaysaa waxa la yidhi waa tuka cambaarle waa tuka cambaarle ereyga ah maxaa la macnaa lambar afar oo ah ceeboole qofku markuu ceeboobo baa waxaa la yidhahdaa hebel baa tuka cambaarle weeye marka waa qofan waxbaba waxa weye dhowrsan oo ceebo marka haddii ilaahay kuu ron yahay ay ka buuxdo marka wadacaala ilaahay baynu ka magan galnay ceebta ilaahay ceebta waa waxun waa yahay lambarka halkaas isagana maxaynu jawaab ka bixinay saddex erey lambar afraad haddaan ku darno oo waxa weeye aynu sii fududayno tusaale ahaan halkan oo kale waxaa inoo ku qoran ceel ilaalin erey la macnaa marka haddaynu ka soo saarno halkaa maxay noqonaysaa ceel ilaalin maxay noqonaysaa baa isleeyihiin haddaad fiirisaan ereyga la macno tusaale ahaan waxaynu inoo fiirisaa toddoba waxaa ku qoran waa ceel seexad marka halkaasay degaysaa iyaduna soo ma jeedin intaas waa intii waxa weeye dila kuu ron yahay ka bixinay tusaalaha inta kale oo god oo bannaan arday adigan kaaga tegay si adiga laftigaagu maankaaga aa u tuujiso isla markaana aad isugu daydo oo uga qayb qaadato waxqabadka inaad ka jawaabtid waayahay waa waxqabadkeennii aynu ka shaqaynayno oo labaad waayahay intaas marka aynu ka soo gudubno asxaabay aad ayaad u mahadsan tihiin ardayda iyo asxaabta kale meel kastoo aad joogtaan cid walba way ka faa'iidi kartaa channelka keliya marka goortaad kasii baxaysid maxaad samaynaysaa si casharadu ay kuu soo gaaraan waxa weye muuqaalada marka aan ku socoto sideenna caadiga ahayd like saar subscribe deh ku xirno adigu waa ku jirtaaba oo adiga casharada ka qayb qaadanaya ee dadka kale laftigooda si ay u gaaraan waa inaad u sheegaraysid aad ayaad u mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu